kulanti wacan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran janalkan Suldaan Tube ku soo dhawaada mar kale ee muuqaal cusub. daawadaya haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato janalkan, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato, furatana gambaleelka si ay kuu soo gaaraan barnaamijyada aan halkan ku soo baahiyo. maanta muuqaalkeena waxaan ku soo qaadan doonaa cudur halis ah oo loogu magac daray coronavirus, kaasi oo laga helay wadanka Shiinaha. cudurkan ayaa noqday mid cabsi iyo qalqal ku abuuray adduunka oo dhan. cudurkan ma ahan markii ugu horeysay ee caalamka lagu arkay. sanado hore ayuu ka soo muuqday wadamo badan, markaas ayaa loogu magac daray coronavirus. laakiin midkan hadda socda ayaa waxa uu u muuqdaa mid ka khatarsan kii hore loo arkay. ilaa iyo hadda cudurkan waxa uu ku dhacay ku dhowaad 4,000 oo qofood, waxaana u geeriyootay 400 oo ruux. markii laga yimaado wadanka Shiinaha iyo wadamo kale, waxaa jira 12 dal oo kale oo caalamka kamid ah oo cudurkan ku faafay. waxaana kamid ah dalalka uu ku faafay cudurkan ilaa hadda Australia, Pakistan, Faransa, Japan, Malaysia iyo Mareykanka. halista cudurkan ayaa ah mid aan ilaa hadda daawo loo helin. dhanka kale, wadanka Turkiga ayaa dib u soo celiyay haweeney ay ugu shakiyeen inay qabto cudurkan coronaviruska, iyadoo ku sugneed garoonka dhexdiisa, kadibna u soo celiyay wadankii ay ka timid ee China. waxaa sidoo kale Afrika laga dhex helay arday Kenyaan ah oo garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ay ka dhex qabteen ciidamada Kenya, iyagoo baaritaano weli ku wada. waxaana loo kaxeeyay isbitaalka weyn ee lagu magacaabo Kenyatta Hospital, iyadoo xaalkiisa dib loo eegayo. waxaa cudurkani markii ugu horeysay lagu arkay gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha, kaasi oo laga helay suuqa lagu iibiyo kalluunka. suuqan ayaa hadda ah mid albaabada la isugu dhuftay, waxaana xayiraad la saaray gobolka oo dhan, iyadoo dadka lagu amray inay guryaha ka soo bixin ilaa amar dambe si looga hortago khatartaani baahsan. dhanka kale, dowladda Shiina ayaa sheegtay inay muddo 10 maalmood ah ay ku dhisayso hosbitaal weyn oo degdeg ah, kaasoo lagu daweynayo dadka laga helay cudurkan coronavirus, maadaama uu yahay cudur halis ah, faafitaankiisuna ay aad u fara badanayso. waxaana fudud in qofka qabo uu qofka kale ku talaalo cudurkan coronaviruska lagu magacaabo. waxaana lagu kala qaadi karaa neefta, qofka oo kula hadlo, taabasho, qofka oo ku salaama. wadamada qaar ayaa waxa ay bilaabeen inay garoomada diyaaradaha ay keenaan qalab lagu ogaanayo qofka qaba cudurkan. sida aan wada ogsoonnahayna, wadankeena Soomaaliya ma lahan qalab dhaqaale iyo baaritaan cid ku suubin karta dadkan. waxaan ilaah ka baryeynaa inuu cudurkan alla naga haayo dhammaanteenba. waad ku maasantahay daawashada aad daawato muuqaalkan. daawade haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato janalkan Suldaan Tube, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato, furatana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada dambe ee aan halkan ku soo baahin doono. mahadsanid.